hablahani waxay halkan ku ciyaarayaan kubadda kolayga ama basketballka loo yaqaano waxay rajo weyn ka qabaan inay noqdaan ciyaartooy caan ah waa tartan hablaha loo qabtay oo iska kaashadeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo ururka Soksa waxaana ka qayb galayay kooxo badan oo ka kala socday wasaaradaha dawladda iyo ururada bulshada tartanka koobkani oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto Soomaaliland oo gabdho ku tartamayaan kubadda basketballka ama kolayga loo yaqaano waxa sidaas noo sheegtay Umul Khayr Axmed Cumar oo kamid ah qabanqaabiyeyaasha tartankani waa markii koowaad horta imika sanoo kale ay u dhacdo oo la sameeyo tartan hablaha dhex maraya oo ku saabsan 6 kooxood inay wada ciyaaraan 6da kooxood waxay kala hayeen Nagad Organization iyo Sonyo wasaaradda xanaanada iyo xoolaha wasaaradda arrimaha iyo shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo team ka tirsanaa Nafis Network maalinta Khamiista iyo Jimcaha iyo Sabtida 3 cisho ayay leeyihiin habluhu ay ku ciyaaraan Sokso waxa jirta maxay ahayd hooyooyin ka tirsan oo ciyaari jiray oo ka tirsan wasaaradda maxay ahayd ciyaaraha wasaaraddaas soo qaban qaabisay dumar u tababaran oo garsoorkiya oo u siidhiga u hayay iskoorka u qoraya anaguna waan caawinaynaa tartankan halkan ka socda ayaa socday in muddo ah waxaana ugu dambeystii ku guuleysatay koox ku ciyaaraysay ururka ama dalada Nagad ee haweenka Xamde Yuusuf Cabdi waxay ka mid tahay kooxda ku guuleysatay tartankani waxaana sheegtay inay sii baran doonto ciyaarista kubadda basketballka iyadoona rajeynaysa inay meel fiican ka gaari doonto waxaan Xamde Yuusuf Cabdi waxaan u ciyaarayay kooxda ururka la yiraahdo Nagad tartankan horta ma sha Allah si fiican buu noogu qabsoomay ma had horta waxa iska dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xigto waxaan mahad celinayaa macallimadeena Khadra Kaliil iyo intii gacan ka geysatay wasiirka iyo dad badan oo noo imaadeen maalintii koobaad ee la furayay tartankan waxaan leeyahay ku mahadsantahay tartankan wuxuu ahaa tartankii wasiirada iyo dad badan noo imaadeen aanan ku ciyaaraynay magacan intan ciyaarayo waxaan dhaliyay 4 gool waxaan ka ciyaarayay dhexda waxaan wallahi waan jecelahay inaan sii wato xoogna waan jecelahay kubadda basketka imika waxaan ciyaarayay 1 year alxamdulillah meel fiican baan ka soo gaaray si fiican waan bartay Xamde Mawlid Maxamed iyo Mabruuka Axmed oo u ciyaarayay koox ka socotay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo ah kooxda kama dambeystii laga guuleystay koobkani waxay noo sheegeen in muddo badan kadib hadda ay u suurta gashay inay ka qayb galaan tartan noocan ah waxaanay ku rajan weeyeen inay ka qayb galaan tartamo kale oo caalami ah daruntii horta anu ku faraxsanahay inaan tartan hableed oo Soomaaliland ugu horeysay inaan ka qayb galo kulleeyda kubad waa barcad iyo barmadow koobkii waana laga qaaday anaga daruntii anaguna kaalinta labaad baan galay ma sha Allah laakiin oon hambalyeynay qolada inaga qaaday koobkana horta waxaan u galayba waa inaan sii wado aan waliba aan noqdo qolo u ciyaarta Soomaaliland dalkayga hooyo inaan u ciyaaro ayaan doonayaa aan ka qayb galo waliba tartanamada marka caalamka kala loo saarayo habigayga kaliya ilaa markaan yaraa waan xiisayn jiray laakiin imika ii noqotay inaan yani ii hirgasho oo aan barto ciyaartii aan hadda 2 sano ciyaaraya haddana waxaan moodaa inaan weligiiba u soo ciyaaray laakiin waxaan jeclahay meel sare ka gaaro oo qof walba inta hablooda ciyaarta hamigooda uu sareeya magacaygu waa Muhaas Leeban Caynaan Maxamed waxaan ciyaaray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wallahi tartan aad iyo aad u fiican baa insha Allah ma heer sare inaan ka gaadhaan rabaa waxaan ka ciyaaraa lambar 9 Umul Khayr Axmed Cumar oo ka tirsan ururka Soksa waxay mar kale noo sheegtay in maalmaha soo socda ay maamuusi doonaan kooxda koobkani ku guuleysatay ee dalada Nagad ka bisha 30keedii oo kala wasiirku waxa uu furay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyaradu iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshadu Hinda Xirsi Gaani oo kale iyo wasiirka xigeenka xanaanadu waxay noo fureen tartan maxay inay 6 kooxood ay ka soo qayb galaan deetana tartankaas 2 kooxood baa ku guuleystay insha Allah ana imika xafladii waxaan qaban qaabin doonaa next week insha Allah waxa kamid ah walaalaha hidiya dhaqanka iyo farshaxanka oo habla badan oo artist oo maama Khadra Kaliil soo saartay ayaa ku jira meesha oo wad arkaysaa waxa halkan ku sawiran iyaga sameeyay iyagana artistka ku sameeyay
iyadoo taasi jirto meeshan looma sameyn habluhu kaliya inay ku ciyaaraan laakiin waxa loo sameeyay inay habluhu isku dhex galaan oo bulshadu isku dhex gasho khaasatan waliba hablaha sidaas loo sameeyay meeshuna waxay dhisantay 18 sanadood ayuu garoonkaasi hablaha u dhisay cid kastana waan soo dhaweynaynaayo ka ciyaarta oo doonaysa inay ciyaarto waan soo dhaweynaynaa waana garab taaganay وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا بندقة تلفزيون Universal هرقيسة.